waxaan rajaynayaa inaan soo koobi doono kuwa horta waxaan u mahadcelinayaa golaha maamulkaan sameeyey hadda kabacdina waxaan rajaynaynaa shaqatan la-eg inay noo qaban doonaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan kaloo u mahadcelinayaa oo aan ayinsanahay taageerada loo muujiyey maxamed xuseen rooble oo ahaa ninkii ugu horreeyey inqilaabka hor istaagay annaga markuu isaga soo qeylaanin baa soo baxnay laakiin isagoo ahaa ninkii ugu horreeyey runtii ee hor istaagay inqilaabka iskuna dhigay in la afgembiyo dalka iyo hay-adaha dastuuriga intaba musalsalkan iska soo socdo 5 sano dalkana 21 sano hore ku socday aniga reer webiya ahaa jiray marka weli markaa aada ugu dabaarno waa soo baxnaa baarkeed baar la iraa ka baxa weliburta ku koray oonada ka guranaa iska cunaa laakiin subaxii iskoolka waxaan ka soo qaadnaa hantii wadaaga barwaaqada noo horseeday hadhana soo qadi markuu sii jirna barwaaqada goormay maale qoonada culoweyna aan jirna saa barwaaqadii isugayna hantii wadaagga soo waday baashii korkeeday ku duntay xamar markii 9-kii xabadda ka dhacaysay madaxweynihii waa qudbay 3 bil ka bacdi xaday bilaabay talaadii beeraha hala fasha kalluunkana la soo baxay ayadana waa u soo joogno waa yaabanay waa lagu kala tegay iyadoo beerihii kalluunkina la faaranay 5 sano waxaan ku hayay qabkii Soomaalida la soo celiyay qabkii Soomaalida wuxuu ku soo dhamaaday Twitter gabar Mareykan ay soo qortay intii warninkii waxa iska dhiibi karaa qabtaa qabkiina halkaas ku soo dhamaaday horta musalsalka oo la leeyahay hanti wadaagana barwaaqo keena qabkii Soomaaliyana waa la soo celinaya oo wax isku wada soo xirnay waayo in saas loo fiiriyo runtii u baahan dhaqan siyaasadeed aad u liito waaye oo ku dhisan kala talisnimo sideeda waxay dhashaa kala iibdeynta bulshada ku tumashada xuquuqda muwaadinka waxay kaloo dhashaa ku takrifalka awoodda marka ugu dambeysana kalsoonidii dishaa waa lagu kala tagaa dalka sideedaba adduunka waa standard meel kasta joogta kala talisnimo waa saas hadda xaaladda dalka xagee joogtaa xaaladda dalka soo sheegay waa professor xasan sheekh cali madaxtooyada dhexdeeda xafiiska xukuumadda iyo xafiiska madaxweynihii hore laba ciidan oo iska soo horjeeda wada kor saaran xafiiska ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda ciidanka kor saaran ee ilaalada ka ah ee ammaanadooda soo arkay iyo kuwa meesha uu ku xariisan yahay odaga xilkiisa dhammaadee farmaajo ah waa iska soo horjeedaan madaxtooyada dhexdeeda xabadda isku haystaa horta waxaan u baahannahay taas inaan horta meel saarno golaha wadatashiga qaranka la yimid isugu yimid waxaa laga rabaa koow inuu ciidankaas kala qaado horta oo labada nimid meesha laga soo saaro sababtoo ah maxamed xuseen rooble waa ra'iisul wasaare xilgaarsiina xilkii dalku hayaa shaqadiina dastuur iyo sida la sheegay siyaasad baa isagaa loo dhiibay ninkii kalena waa xaraysan iyo hadda makri iyo shirqool ku maqan yahay labadii ciidanna madaxtooyada isku hor fadhiya si loo kala guro waxaa sahlan ninka xilkiisa dhammaaday oo inqilaabku isku dayay oo fashilmay golaha wadatashiga qaran si fiican loo dhageystaan iyo beesha caalamka fariimaha soo diraysa iyo annagaba waa inaan isku raacnaa si nabad filla Soomaaliya dhexdeeda uga dhacdo maaha meel kale nabad meesha ka dhacay si filla Soomaaliya dhexdeeda nabad uga dhacdo oo nabad loogu wada noolaado bahashii filla Soomaaliya dhex taagan tahay ninkaas odayga in laga soo saaraa qodobka labaad taliyaasha ciidamada hadla maanta waa fiicantii laakiin hadalkiina hal midab ka dhima ina is-casishiin waxaan u soo taagneedeen weeraradii iyo dagaaladii dalkan ka dhacay qaarkiin hormood oo ka ahay waa ogtihiin qaarkiin shala ugu dambeysay fidnada qayb ka ahaayeen oo dad mudaaharaada ay hor joogeen ay diidayeen walaalayaal si aan fariintiina u maqalno iscaasila waxaa la magacaabaa taliyaal aan dagaalada qayb ka soo noqonin oo fidnada ka soo qayb gelin midoo professor xasan sheekh ka sheegay boosaaso laga soo bilaabay laakiin Soomaaliya daba tahay ragaa ka soo qayb gelin oo saraakiil iyo gabdho saraakiil u baahannahay naga horwareega markaas waxaan isaga imaanaynaa doorashada sida loo toosinaayo
sida malxiis loo joojinaayo sida odacaal sheegay kursiga la dhacay loo soo celinaayo si aan kuraasta kuraasta 275 qabiilaha iska leh reer hebel iyo jufa hebel aan yiraahdaa madaxweyne dowlad goboleed iska male nina arkaysa xildhibaan doonaa ama nin siyaasi oo kursi rabo ama nin kursi ku fadhiyo difaacanaya أنا باركو وتاعي من البلد ولا قبله ولا ما حاول تاعي أنت كرسي أقرب أو قليل وكرسي من العوينها مال فيسبوك وقال حفظه الله من العوين هبل وقوايا ما طلع والمحاك وده كرسي أقرب وكرسي قبيل كان إسكالم ما صار إسكالم يا الله سوي وروح الله ماشي حتى يدافع من هكذا يا دكتور مالي لها أو PhD هولدر حقولي مدحونات والقبلات كمالك أمانة معك وده كرسي لا كرامة وهذا كسر شيء شعب مني السياسة مياه فرع بوتينا معاوية سياسة الموفيس ما هو هذا politics of موفيس يعني هذا ضل كان ما أنفعه إنما أنا بدبالي كرتو كرامة الديجنيتي شرفت من هذا كان واقع دي ما هذا من صاحبك يقول وزير الأكل وتسرج الناحك فيسبوك وعسوق لي فرماجه مهراس بصعد ماقا وزارة وفراي بيرا ما ماقا من قضية وين واحد فيسبوك وعسوق لي سيدا ومدحوينها جدك كل مري تاريخنا بوقتها وغيرها سواء أمان أنا بارك يستاك يسود دوي يا المصلي أمان أنيقا مدحوينها دول قبلت كانوا وقومي هنا فانتها يا نفتي سوالي كي كرسي كسر وقعتها سوى حتى بارو تقمعي روح على السياسة الله حتى وحي مري حتى ويليش يرى في السومالي جولا لا ما راحتها سي كرسي لو وحده وروح على السياسة الله ضمن من معها وحواي فرماجو وإنه في الصومالية صوبانيو حتى ما هو صومالية سي في الصومالية من هو وحده القضية اسمها فضية قضية اسمها في الصومالية لما قضية اسمها هرجن وحكم ما دعينا يا ويلشة مدحتوية إلى لدينا كمدة جيسيالك مارنتي انقلابك الديدي تاريخ لما يرى نورتي ولا يقانا مقعيد ولا يبدي هبلا مقانا جيسيال هاي وحاكلوا أمانة وعلينا يا رئيس الوزراء ودي حتى محمد زروبله إنه بابور كتجي جري حافظ كتجوادي والنبي كارتيناس جيسيمadaas waa ku maatay maxaa noo dhiman ninka odayga ah iska soo bixino ra'iisul wasaaraha taladii dalka maalmood 4 abriil waa ogtihi waxaa noo kaga qaaday asaga lagu wareejiyay wax lagu wareejiyay ma jiro asaga naftiisu hafray annagana waa hafrnay wax lagu wareejiyay ma jiro inaan lagu wareejin habeen 27 December aragnay marka waxaan u baahanahay markan odaygan in la soo baxsho oo anaga jaayga nala soo dego musharaxiinta meesha degan ka soo ra'iisul wasaaraha awoodda loo madax baneeyo iyo talada taliyaasha ciidamadana statementigiina waa fiican yahay laakiin waxaa ka dhiman inaa idinkiisa casishiina ka dhiman madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ومهتيه كوي تاغير رئيس الوزراء هو دومنا يو بناك صوبها مال إنك يلا يدد كان يديغان كان مثلا وحي تضوي لما تنكي ديسمبر دعينا واكا موسى مال إسك يلا يو مال إنك يسمها أنا لكي يلي ماينو dadka magaalada joogana ka yeeli maayaan dadka labada dowlad goboleed ka tirsan ka yeeli maayaan mana laga akhrisanaayo ra'iisul wasaaraha ku tabafayla
garab istaaga danta qarankaa ku jirto danta deegaanka aamatashana ku jirto danta dowladnimada Soomaaliya ku jirto adduunkiya ku daba safare manino adduunku hiilaydi ku diidaysi haddaan isleeyihiin farmaajo ma nool haddaan satihiin jinnigii ka baqaayay nabi Suleymaan oo dhintay oo islahay waa nool yahay baday dhisahay jinnigu waa fiiriya waa nool yahay isleeyihiin aboora markii dambe ush hoos ka cunay aboor jinni wuxuu tusay inuu nabi Suleymaan dhintay waxaan u baahanahay walaalaheen aboorkii tusi lahaa farmaajo oo dhinto ama sintii wasalaam